ku bilownay isbedelkii gudoomiyaha baarlamaanka uu ku sameeyay guddiga maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu beegsaday 3 xubnood oo caqabad ku ahaa xukuumadda. dhinaca kalena xildhibaan ka tirsan guddiga maaliyadda ayaa sheegay isbedelka guddigaasi lagu sameeyay in lagu raali gelinayo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Faysal Hanad ayaa ka waramaya. warqadda dib u habeynta guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya ee maanta uu soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka dalka Maxamed Mursal ayaa liiska waxaa looga saaray 3 xubnood oo ka mid ahaa xubnihii guddiga ugu firfircoonaa ee soo bandhigi jiray shaqooyinka guddigaasi ay qaban jireen iyo dhaliilaha xukuumadda ee dhanka maaliyadda. tira ahaan guddiga maaliyadda wuxuu ka kooban yahay 18 xubnood, balse warqadda gudoomiyaha baarlamaanka uu soo saaray ee dib u habeynta guddiga ugu sameeyay ayaa lagu beegsaday 3 ruux. xubnaha laga saaray liiska guddiga maaliyadda golaha shacabka ayaa kala ah gudoomiyihii guddigaasi oo lagu magacaabo xildhibaan Cabdi Cali Cismaan, gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo lagu magacaabo xildhibaan Maxamed Aadan Macalin iyo xogahayihii guddigaasi Cabdullaahi Maxamed Nuur oo loo arkay saddexdooda inay caqabad ku yihiin xukuumadda. 3 xubnood ee liiska laga saaray oo aan la xiriirnay si aan wax uga weydiino arrintan ayaysan inoo suuro gelin inaan telefoonka ku helno. xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinde oo ka tirsan guddiga maaliyadda ayaa risaalo u sheegay sababta ugu weyn ee dib u habeynta guddiga loogu sameeyay inay tahay mid lagu raali gelinayo xukuumadda. أولاً وحنا رأينا أن حصو خلاف كما تاجنين جودي دحديث واحد وكذا ما لهن خلاف كان خلاف سياسي هذا وهاي وحكومة وأي وضطيل وها حكومتنا واحد موقت قدومي وكأننا وكملنا يون بروبلم جري ودن وحي موقتين للسحلي ما قدرت البروبلم هذه بكر لقيت سحلي وحنا مالنا واحد وكلنا نيجين أساسا أن سنة إنه جودي ووضع شقين كده أو إنه شقين جري جودي واحد لما مجرنا عدي لما بنشد عدينا لسي سعر عدنا وحنا بالوخن عيه حكومة السير رتبها الله يرى مركب مو ملاينا واحدة ودبا إني جرايان marka isbedelka la sameeyay dabcan sida hadda aad sheegtay wuxuu ku qotomaa hanaan xukuumadda ay rabtay oo rabitaankeedii loo raacay shakilaan saasay u muuqataa waana sida ay tahay. sida muuqata gudoomiye Maxamed Mursal oo dhawaan sheegay inuu buray mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda xal heshiis ah la qaatay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, waana sababta keentay in guddiga maaliyadda uu dib u habeen uu ku sameeyo gudoomiyaha baarlamaanka oo la ogaa mowqifkii cad ee uu ka istaagay kala daristii lagu sameeyo xubnaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Soomaaliya. 3 xubnood ee cusub ee ka soo dhex muuqday xubnaha guddiga ayaa kala ah Professor Salim Caliyo Ibrow, Aadan Cali Xasan iyo Sagal Isaaq Biixi oo ah xildhibaanad ku dhow madaxweyne Farmaajo. xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jinde ayaa sheegay sida hadda wax ku socdaan dhammaan xildhibaanada iyo guddiyada shaqeynaya inaysan muuqan isla xisaabtan dhab ah inay ku sameyn karaan xukuumadda, maadaama uu sheegay in xukuumadda gacmaha ay kula jirto guddiyada xildhibaanada shaqadooda. ولن هذا شعب قوي أركان يو قف كستوى ما سياسة دنينا يو أما دنا عامة أو أركان الرد بالشدة وي أركان وح وكبل لو دي جودي خلاف مثل وحي هذا وربحن أو جودي كاني وربحن توا خلدن تي واسحن تي وحلا جد دودي كرام حال جودي لو كلا برب كاني مركا يعني وحنا الجديدة يجري عام وحنا إيه إسلاء مصان أو أنا مردم بلغة المركا أنا ما ملاينا يو بلا شعبك إن dadweynaha qaabkay u matalayeen iyo special xisaabtankii iyo controlkii shuruucda la soo saaro ku dhaqankeedii inay meesha ka muuqan doonto ma u malaynaya mana ka hadlay kaliya guddiga maaliyadda guddiyada kale intoo dhan ba gacan ku gabad iyo maxaa la dhahaa gacmaynta xukuumadda ka socota darteed aanay wax badan qaban doonin saan u arko. marka shacabka ma filaya inay siyaasaddu way la socdaan, idaacadahana 24 saac dhegaystaan ficilka jiro ay xukuumadda samaynayso iyo way ka garan kartaa. marka golo meesha waxaa laga rabaa golo shacaba laga rabaa, golo shacabka ma rabto xukuumadda ma filaayo in la xisaabtan dhab ah ay meesha ka imaan doonto. guddiga miisaaniyadda maaliyadda qorsheynta iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee golaha shacabka ayaa bishan 30keeda oo maalmo ay naga xigaan laga doonayaa keenista miisaaniyadda dowladda, sida muuqatana arrintaasi aanay suuragal ahayn. falanqeeyaasha siyaasadda ayaa sheegaya in tani ay muujinayso curyaaminta nidaamka isla xisaabtanka dhabta ah ee dalka ayna u gogol xaarayso nidaam isla xisaabtan la-aan la xiriirta.
diyaarad uu la socday sarkaal ay nisa u magacaawday gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa maanta laga soo celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar. Maxamed Abuukar Dabaasha ayaa faafahinaya warkan. warar xogaal ah oo helin ayaa xaqiijinaya in maanta barqadii garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar laga soo celiyay sarkaal ka tirsan nisa kaas oo 3 cisho ka hor loo magacaabay inuu noqdo taliyaha nabad sugidda ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sarkaalka la soo celiyay ayaa waxaa magacaabay kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya ahna taliya ku-xigeenka nisa Fahad Yaasiin. waxaana la sheegay in garoonka diyaaradaha Jowhar in ay u diideen inuu ka soo dego ciidamo military ah oo ku heyba sarkaalka haysta nabad sugidda ee gobolka Shabeellaha Dhexe. 2 bil ka hor ayaa madaxweynaha Hirshabelle waxa uu magacaabay taliyaha nabad sugidda gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii xilkaas uu ka qaaday taliyihii hore ee nisa oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cabdilaahi Xaayo. waxaana xilka loo magacaabay sarkaal lagu magacaabo Macalin Aadan. ciidamo military oo wata gaadiidka dagaalka ayaa garoonka diyaaradaha Jowhar isku geedaamay kadib markii uu diyaaradii uu la socday taliyaha cusub ee Shabeellaha Dhexe loo soo magacaabay ee garoonka ay ka soo degtay. ciidamada military ay ka caroodeen taliyahan cusub sidaa darteedna ay diideen in uu garoonka ka soo baxo ama diyaaradda uu ka soo dego sarkaalkan. dadaalo kala duwan oo la isku dayay in sarkaalkan uu ku gudbo gudaha magaalada Jowhar ayaa ugu dambeyn suurtagali weyday, waxaana taasi ay keentay in ugu dambeyn dib loo celiyo sarkaalkan oo ku laabto magaalada Muqdisho oo markii hore laga soo magacaabay. ila wareedada ayaa xaqiijinaya in Hirshabelle aysan ku qanacsaneen in loo magacaabo taliye nabad sugid ee gobolka Shabeellaha Dhexe xilli uu joogo sarkaal madaxweynaha Hirshabelle uu magacaabay balse 2 bilood ee la soo dhaafay uusan helin staadka iyo taageerada uu ka waayay dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa wada qorshe ku aadan in saraakiisha nabad sugidda maamul goboleedyada ay noqdaan kuwo u magacaaban dowladda dhexe si hadhow awoodda ciidanka ay ugu yeelato xarumaha dowlad goboleedyada dowladda Soomaaliya. wasiirka gaadiidka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta soo saaray amaro lagu xakameynayo gaadiidka duqoobay ee lagu isticmaalo magaalada Muqdisho gudaheeda. Cali Xasan Cali ayaa faafahinaya warkan. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa wuxuu amar ka soo saaray isticmaalka gaadiidka duqoobay ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay wasiir Omar inay ka shaqeyn doonaan hubinta gaadiidka duqoobay inay bad qabaan ama ay sii shaqeyn karaan shaqsigii gaarigiisa u bad qaban la siin doono shahaado cadeynaysa inuu ku sii shaqeysan karo. waxa uu intaa ku daray in howlahaasi hubinta ah ay qaban doonaan garaashman horey usoo qabtay uuna soo tartamo howlahaani. wuxuuna tibaaxay in arrintan ay wax badan kusoo kordhin doonto dhaqaalaha dalka. maanta wixii ka bilowdo si gaariga uu jidka u maro sida wadamada adduunka oo kale wuxuu mari doonaa tijaabo. haddii gaariga uu ku guuleysto tijaabadaas wuxuu heli doonaa shahaadadaas ayuu wuxuu la iman doonaa wasaaradda qaybteeda baraa. qaybtaas ayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo certificate-ka siin doonto si aan u xakameyno aan u ogaano badqabka baabuurta garaashyadii hore usoo qabtay shaqadaasi oo lasoo tijaabiyey usoo tartamay ayaa hadda shaqadaasi inoo qaban doona hadduu ilaahay ka raali noqdo. waxaan rajaynaynaa in badqabka baabuurta ay wax kusoo kordhin doonaan waddanka dhinaca dhaqaale iyo dhinaca amni intaba. sida aada la socotiin baabuurro badan ayaa maalin kasta waxaad jidka ku aragtiin iyagoo ama muraayad la-aan ah ama break la-aan ah ama wax badan ay ka khaldan yihiin haddana jidka iska maraya xamuul qaadaya naf iyo maalba dhibaato u keenaya. si taa looga gudbo MOT-ga maanta iyo wixii ka dambeeyo baabuurta sanad kasta marka uu cusboonaysiisanayo wuxuu marayaa dad annaga naga madax bannaan ayaa soo tijaabinaya. haddii ay soo baasaan ama laga codsado inay wax ka soo bedelaan baabuurka ama ka soo hagaajiyaan marka ay ka soo dhamaadaan ayay inoo imaan doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo. magaalada Muqdisho waxaa ka shaqeeya gawaari duqoobe oo u badan kuwa xamuulka ah oo ganacsatada Muqdisho loogu soo qaado badeecadaha kala duwan oo ay ka soo degsadaan dekedda Muqdisho kuwa oo inta badan shacabka u geysta waxyeelo kala duwan. dagaal u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed ayaa maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Galgaduud iyo Hiiraan. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa faafahinaya warkan.
wararka naga soo gaaraya deegaanka ka xandhaale ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxa ay sheegayaan in maanta halkaas uu ka qarxay dagaal u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay isku horfadhiyey deegaan hoos yimaada degmada ka xandhaale ee gobolka galgaduud dagaalka ayaa la sheegay inuu saaka aroortii hore bilowday waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadka dagaalamaya ee ku dagaalamaya deegaanka ka xandhaale ayaa waxay isku haystaan dhul daaqsimeed iyo ceelbiyeed ku yaala tuulo hoos timaada deegaanka ka xandhaale ee gobolka galgaduud waxaa jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay dagaalkaas sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug xildhibaan cawili yaxye faarax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa idaacadda risaale ee magaalada muqdisho u sheegay in maamulka galmudug wado dadaalo looga hortegayo in dagaalkaas uu sii faafo islamarkaana dhowaan ciidanka galmudug ay gaari doonaan halkaas si dagaalka loo soo afjaro islamarkaana beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya ka xandhaale loo kala dhex galo walaalow saaka abaara hal saac ayaa dagaal wuxuu ka qarxay duleedka ka xandhaale oo loo yaqaano higla tiriye dagaalkiina sida hadda weli dadka deegaanka sheegayaan wuu socdaa khasaarana waa ka dhacay sida dhaawacyo ayaa waxay soo kala gaareen dhabad iyo galansoor dagaalkiina weli inuu socdo ayay dadku deegaanka sheegayaan waxa weeye dagaalkan wuu soo noqnoqday sida dagaalka uu dhacayna waa dhul daaqsimeed ee labada beelood wada degaan waxaanu u sheegaynaa odayaasha dhaqanka galmudug iyo maamulka galmudugba sidii waxay ugu howlan yihiin ay dagaalkaas u joojin lahaayeen dhul daaqsimeed waaye waa dad waxa waaye sidaad la socotid hadba roobku meelahu u badan yahaa dadku isugu tagaa markaas kabacdiba ayaa dad shaydaan dabada ka wada ayaa wax sameynaya sidaasaa dagaal ku qarxaya dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed geele ducaale xaaf ayaa lagu baaqay beelaha ku dagaalamaya deegaanka ka xandhaalay iyo sidoo kale degmada maxaas ee gobolka galgaduud inay dagaalka sidii ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiyaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed geele ducaale xaaf ayaa sheegay in xilligan aan loo baahnayn deegaano ka tirsan hirshabeelle iyo weliba galmudug inay ka dhacaan dagaalo isagoo sheegay in ciidanka maamulka galmudug ay kusii jeedaan degmada maxaasa deegaan hoos yimaada oo ay ku dagaalamayaan laba maleeshiya beeleed islamarkaana dhowaan halkaas ay dhigi doonaan galmudug gogol nabadeed oo lagu heshiisiinayo beelaha bilooyinkii lasoo dhaafay ku dagaalamayay degmada maxaas ee gobolka galgaduud ee gobolka hiiraan burcad South African ayaa xaray dalka South Africa ku dilay muwaadin Soomaaliyeed ubax maxamed nuur ayaa faahfaahinaysa warkan muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa ganacsatada dalka Koonfur Afrika ayaa lagu dilay xalay deegaan lagu magacaabo Qamaata oo ka tirsan dalka South Africa burcadda Koonfur Afrikaan ayaa la sheegay inay koobtiisa ganacsiga ku dileen marxuun lagu magacaabi jiray Bashiir Abuukar Maxamuud oo kamid ahaa ganacsatada Soomaalida ee goobaha ganacsiga ku leh dalkaasi mid kamid ah dadka Soomaalida ah ee dalkaasi Koonfur Afrika ku ganacsada ayaa waxa uu sheegay in dilka kadib kooxdii burcadka ahayd ay goobta ka baxsadeen hayeeshee ay baaritaano sameeyeen ciidamada booliska dalkaas walow aysan qaban kooxdii dilka keysatay marxuumka xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika ayaa bil ka hor wuxuu yimid magaalada Muqdisho isaga oo waqti fasax la qaaday reerkiisa kadibna dib ugu laabtay dalkaasi Koonfur Afrika eheladiisa ayaa xaqiijiyay muddo ku dhow hal sano inuu ka ganacsan jiray dalka Koonfur Afrika oo meherad ganacsi uu halkaasi ku lahaa inta badan burcadda Koonfur Afrikaanka ah ayaa waxa ay beegsadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay dil iyo dhac isugu daraan mana jirto boolis si dhab ah baaritaano uga sameeya kiisaska dilalka ah ee loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed